ma ninka ayaa badan mise gabadha ayaa badan maxaa maanta dhici lahaa haddii ninku dukaankiisii amba gurigiisii uu deganaa uu yiraahdo waan sadaqadaystay oo xaajiyadu dhex joogta inta uu yimaado uu yiraahdo hiblaayo gurigii waan nin baan siiyey oo waa sadaqo ka soo ururso oo meelaha ay naqabadsiin maxay oran lahayd gabadhaas faalo badan baa ku jirta halkaas waxa la oran lahaa ninkii odayga uu yara khafiifay odayga uu yara waashay xoolihii buu daadaadinayaa ninka tulkii aaway assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waa barnaamij cusub oo aynu magac daray dhacdo iyo dheehasho waa mowduuc aynu doonayna haddii Ilaahay ka dhigo si joogta in muddo ah inaynu u wadno sida ka dhadhansanaysaan macnaha magaca barnaamijka waxa uu ka hadlayaa inaan soo tabiyo haddii Ilaahay ka dhigaan baan soo gudbiyo dhacdooyin dhacay xilligii nabiga calayhi salaatu wassalaam ambaha ku dhacaan isaga nabiga calayhi salaatu wassalaam ku dhacaan amba asxaabtiisa ku dhacaan dhacdadaas inaan dul cararin yana dul istaago oo had iyo jeer waxa la yiraahdaa taariikhaha amba dhacdooyinka dadka qaarkoodna waxay xusaan sida u dhaceen waxa saa dhacay halkaas ka dhaceen hibil baa waxa sameeyay dadka qaarkoodna way dhaafaan dhacdada waxaanay u daadegaan dhacdada wixii ka dambeeyay oo way fasiraan dadka qaarkoodna intaaba way sii dhaafaan dhacdadii bay sheegaan dhacdadiina way fasiraan waana tawdiifiyaan way tawdiifiyaan macnaheedu waxa weeyaan way shaqo geliyaan waxay u shaqo gelinayaan dhacdooyinka waxa loo kaydiyaa oo taariikhda iyo mahadhooyinka waxa loo reebaa cidda dambe inay ka faa'iideysato marka waxaanu isku dayi doonaa haddii Ilaahay ka dhiga dhacdooyinka aynu ka sheekayn doono insha Allah ta'ala inaynu sardino oo aynu isku dayno inaynu dul istaagno oo aynu fasiro oo aynu macnayno oo dabadeedna aynu raacino maxaa inaka inooga dana iyo maxaynu ka faa'iideynaa barnaamijka caankaas inoo socon doona haddii Ilaahay ka dhigo waxa laga yaabaa 5 amba 6 amba 10 amba 20 inuu noqdo suuragal ah waynu wadaagi insha Allah ta'ala waxaynu doonaynaa haddii Ilaahay ka dhiga caawa oo xalqadii koobaad inaan ku bilaabo mowduuc aad iyo aad u muhiim ah mowduucaasi wuxuu yahay al-istijaabatu lillah wal-istijaabatu li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam in la yeelo oo la maqlo oo waliba loo degdego maqalka iyo yeelitaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa waxa had iyo jeer dhagaheena ku badan oo aynu maqalay ereyga la yiraahdo at-taa'a iyo yeelitaanka rasuulka in la adeeco Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la adeeco adeecitaankaas waxa uu leeyahay heerar waxa uu leeyahay darajooyin buu kala leeyahay darajooyinka qaarkood waxay yihiin inuu qofku isku dayo halka ugu dambaysa yeelitaanka inuu ka soo qaado salaada inuu ku tukado inuu halka oo salaada duhur inuu iska ilaaliyo inaanay ka tagin salaada casr inuu iska ilaaliyo inaanay ka tagin halka dadka qaarkoodna salaadu intaanay gaadhinba salaada ka hor inuu qofku hawshiisa si qabsado si diyaar garoobo salaadii uu ajiibo marka istijaabadu way ka xeel dheer tahay amba way ka fadli badan tahay daacada ka mid tahay ku sirtaa laakiin waa daacada foolaadkeedii xaggeeda hore waxa lagu af Soomaaliyeyn karaa al-istijaaba in loo degdego amba in loo dhaganuglaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo hadii Ilaahay la adeecayo aan loo adeecin si cagajiida si farxad leh oo firfircooni leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala in loo adeeco dhacdada aynu ku balaysimayna hadalkeenu waxa uu yahay rasuulka calayhi salaatu wassalaam asxaabtiisa saxaabi kamid oo Abu Dahdah la yiraahdo dhacdo ku dhacday oo uu sameeyay rasuulkuna calayhi salaatu wassalaam oo ka maragaha oo uu bogaadiyay maalmaha kamida nabiga calayhi salaatu wassalaam isagoo asxaabtiisa la jooga waxa uu yimi nin saxaabiya ninka saxaabiga ah waxa uu wataa codsi waxaanu wataa soo jeedin waxa uu ka hadlayaa wuxuu leeyahay waxaan ahay nin beer wala ah oo bustaan leh bustaankayga deerkiisa waxa mara aan isu dhownahay nin kale ayaa bustaankiisa aan isu dhownahay ninka kale bustaankiisa baa geed kamid ah soo yara leexday wuxuu ku soo leexday bustaankayga isaga iskala ninkaasi geedka صح لكن بستان جيت كاسي وحا وسو دو يحي بستان كيغا رسولك إلهيو
ninka saxaabiga ah ee kale ee geedka iska leh waxaad amartaa geedka inuu isiiyo si uu maaragtay oodaydu gudaha u soo galo oo oodda igu toosto rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkiiba ayaa yimid bustaanka kala lahaa dabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo jeediyay hebelow waxaad siisaa ninkan siib geedka waxaana lagugu bedeli doonaa binakhlatin fil janna maxaan ku idhaahdaa geed timireed kale oo jannada ku yaala geedkaagan yar ee ku yaala adduunka ninkan sii waxaana aakhira lagu siin doonaa geed timireed jannada ku yaala labada isku bedelo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninka ma amrin waajibna kagama dhigin waa soo jeedin rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soo jeedinay waxay ka dhigan tahay maadsiin saxaabiga arrinkaasi ma jeclaysan oo rasuulka ilaahay geedkaas siin maayo waxa laga yaabaa qaarkeen inuu ceebsano ninka saxaabiga ah ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam u soo jeediyay inuu ninka geedka siiyo isna ka dhaga adeegay qalad maaha wala xajeclo waa xoolo isagu iska leeyahay waana xaqiisi rasuulka calayhi salaatu wasalaam amar inuu bixiyo iyo inuu soo jeedin sameeyana way kala duwan soo jeedintu waxay ka dhigan tahay ikhtiyaar baad leedahay boqolkiiba boqol haddii aad diidana canaan iyo ceebtoona kuma lihid haddaad ogolaatana kaba si wanaagsan maha dhacdadii koobaad mar hore nabiga calayhi salaatu wasalaam soo martay saxaabiyadii odhan jiray bariira adoon bay ahaan jirtay markii hore dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ogaayo waa la xoreeyay ninba isqabeen adoona oo isna kale ninkii markii gabadhii la xoreeyay gabadha way ka furantay gabadhii way isaga tagtay ninka odayga ah gabadha qabay ee bariira qabay uu ka daba dhacay uu ka daba ooyi jiray madiina magaalooyinkeeda ay socotaa isaguna uu daba socdaa waa la isku bartay waa bariira iyo kii ka daba dhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka ergayay wuxuu ku yiri bariiraay ma iska guursatid waxa rasuulka ilaahay ma amar baa meeybuud ma amar ma hay soo jeedin dan kamil bay ku tiri marka waxaan uga jeedaa bariira iyo saxaabigani midkoodna ma dambaabin canaan iyo caytoona mu mutaysan waayo shay xaq u leeyahay oo caadiyabu ayuu qaaday saxaabigu waa diiday wuxuu yiri rasuulka ilaahay anigu ma siinay ninkaas waan iska haysanaya kayga waxa maqlay sheekadii saxaabiga leeyahay Abu Dahdah waa nin hantiila ah hantida laakiin uu leeyahay waa bustaan weyn oo 600 oo geed oo timir ku yaalo wuxuu kamid yahay basaatiinta ugu qaalisan ee ugu manaafacaadka badan basaatiinta iyo bustaanada Madiina ku yaala markii uu maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu soo jeediyay hal geed oo timira in loogu bedelayo hal geed oo timiro jannada ku yaala waxa buu yiri ka badso ninkii buu tagay wuxuu ku ninka geedka diiday maadiga wuxuu dhahaaya waa aniga wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yiri wuxuu ku yiri saxaabiga Abu Dahdah ninkii saxaabiga wuxuu ku yiri kale waxaad samaysaa beertayda oo dhan qaado oo aniga kaisi beertayda oo dhan qaado anigana geedka meesha ninka kala soo galay isi ninkii uu yaabay saadaadgu uu yaabtay ayuu u yaabay wuu ogolaaday wuxuu ku yiri waa okay waan qaatay heshiiskii baa la kala saxeexday nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay ninkii aad doonaysay inuu guriga amba maaragtay in seeskiisu inuu soo maro oo gudaha u galo beertiisa ana arrinkaas soo xaliyay ninkii ku wareeji rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinka baa loo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu bogaadiyay arrinkaas waa arrin yaab badan waxa ka siyaa badan wuxuu tagay gurigiisii xaaskiisii iyo caruurtiisii oo gurigii jooga oo beertii iska degan oo manaafacaadsanaya gabadhiiba ku yiri Dahdah waa xaaskiisii Dahdah beerta ka soo baxa maxaa dhacay bay tiri wuxuu wax kale ma dhicina waxa dhacay beertan ilaahay baan ka iibiyay oo waan sadaqadaystay nabigan calayhi salaatu wasalaam ku wareejiyo janna leenoogu bedelay ka soo baxa waxay ku tiri rabi hal bayc iibkaagaasi waa iib lagu macaashayo yaabku wuxuu yahay ma ninka yaa badan mise gabadha yaa badan maxaa maanta dhici lahaa haddii ninku dukaankiisii amba gurigiisii uu deganaa uu yiraahdo waan sadaqadaystay oo xaajiyadii dhex joogta inta uu yimaado uu yiraahdo hiblaayo gurigii waan nin baan siiyay oo waa sadaqa ka soo ururso oo meelaha ay naqabadsiin maxay oran lahayd gabadhaasi faalo badan baa ku jirta halkaas waxa la oran lahaa ninkii odaygu uu yara khafiifay odaygu uu yara waashay xoolihii buu daadaadinayaa ninka tolkii aaway dumaashiyadii baa loo yeedhi lahaa qadiyadu markaa iimaan darro iyo iimaan la'aan toona maaha waxay ku xidhan tahay waa qofka iyo istijaabada Ilaahay subhanahu wa ta'ala
الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم waxay ka dhigan tahay qofku marka uu maqlo ilaahay baa sidaa yiri ilaahay waxa soo doonaya xagga iyo xagga isagoo qofku aan eegin inuu markaba sameeyo inaanu ka fikirin inaanu talagelin inaanu ishkaal gelin iyo su'aalo oo ama san looga jeedaa waa may noocan tahay malaastan lagama wado malaasteer baa laga wada aqliga iimaanku ma keenaya inuu ka jawaabi doono hadii ilaahay ka dhigo dadkeena qaarkeen maanta waxaad moodaa aqligu maanta inuu nagu bilaabmay iyo aqliga in la adeegsada inuu nagu cusub yahay shariicadii aqligu isma diidaan istijaabada rasuulka kaleey salaatu wasalaam la ajiibo iyo isma diidaan saasoo kale aqligu isma diidaan waxaan ku soo gabagabeenayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayuha alladina aamanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'aakum lima yuhyikum dadka muuminiinta waxa yeeshaan waa maqashaan oo u dhagan gulaataan ilaahay iyo rasuulkiisa haday idinku yeeraan waxa ku noolaanaysaan ajaayibku wuxuu yahay maxaa lagu noolaanaya waxyaabo xagga ilaahay ka yimaada waxa nolosheena ku jirto waxaan u baahanahay siyaasad nool baynu u baahannahay waxaynu u baahannahay waxbarasho nool waxaynu u baahannahay dhaqaale nool waxaynu u baahannahay dhaqan nool waxaynu u baahannahay tarbiyad nool maxaan uga jeedaa waxaan u jeednaa wax tarta waxbarasho wax tar leh oo tayo leh oo sidee bay u noqonaysaa waxay u noqonaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala in looga dambeeyo siyaasad nool baynu u baahannahay hayya nool waxay ku noolaanaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala in laga qaato habka maamul iyo habka dawladnimo iyo qaabka cilaaqaadku ay yihiin dhaqaale nool baynu u baahannahay dhaqaalaheenu xalaal iyo xaraan waa inuu kala soconaato qofka dhaqaaleyahanka ah ama qofka ganacsadaha waa inuu og yahay inay mas'uuliyad ka saaran tahay ummadda inuu nooleeyo inta uu nooleyn karayo isaguna uu ku noolaado inuu ajiibo ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa waxbarashadana waa inkaas oo kale tarbiyada waa saas oo kale akhlaaqda waa sidaas oo kale marka istijaabadu iyo yeelitaanka ilaahay subhanahu wa ta'ala la yeelaya marka la soo gabagabeeyo waxa la yiraahdaa waa sur'atu taa'a wal inqiyad وإرغام النفس على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم والتحرر من عبودية غيره سبحانه وتعالى إن لو دقدقوا لو نقصده أو لو دقنقول هذا إلهي رسولك سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم إن له جان سناده وماشي إلهي كمرية آدمرته رسولك عليه الصلاة والسلام ماشي كمرية آدمرته نفتنا الله قدر قيو الله جاءت كاده إلا مريو وحي إلهي ودوني رسولك عليه الصلاة والسلام وحي ودوني ugu dambayna wataharrura min ubudiyati ghayrihi subhanahu wa ta'ala inuu qofku hubiyo inuu ilaahay oo kaliya adoon yahay ilaahay cidaan ahayn inaanu adoon ahayn ilaahay mooyane cid kale adoon ahayn maxaa ka hor yimaada qofka maxaa u diidan inqiyaadka maxaa u diidan istijaabada maxaa qofku ka helaya midhaha uu ka helaya waa maxay dadkii hore aankabay subhanahu wa ta'ala ilaahay u yeeleen rasuulkana عليه الصلاة والسلام ay u yeeleen hadii ilaahay ka dhigo xalaqaadka dambe inuu kaga warrami doona inaasan ku soo gabagabeynaya sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ma jeceshahay barashada xifdiga quraanka kariimka fursad iyo chance aad ku barato ma weeyday haddaba waxaan ku hayaa dugsi waqti Allah iyo waqtiga chance hayso aad ka baranayso barashada xifdiga quraanka kariimka culumta shariicada islaamka ومدرسة القرآن أونلاين ويكون جوجان معلمين أقوون له هذا بعد دونيسو كل حرير تلفون كشاشة ده كم نقطة بلنتين وان إنه كفاية سنو دكسين مدرسة القرآن أونلاين